wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Nuur Caraale Duur oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Saylac saaka subaxii ayuu wasiirku bilaabay booqasho uu ku gaala bixinayo xafiisyada dawladda wuxuuna kulamo la qaatay mas'uuliyiinta goobahaasi oo ay ka mid yihiin maareeyaha dikadda iyo maamulaha kastanka intaasi kadib wasiirku wuxuu dhaqaaqay dhinaca iyo dikadda qadiimiga ah dikadani ayaa u muuqata mid marba marka ka dambaysa sii kordhinaysa hawlaheeda shaqo taasina ay ka dambaysay markii uu sameeyay madaxweynuhu maamul iyo kala dambayn haddana waxa ka socota hawlo lagu dayactirayo booqashada ayaa waxa wasiirka ku helinayay la taliyaha madaxweynaha axsaabta qaranka iyo doorashooyinka mudane Maxamed Muuse Abees gudoomiyaha gobolka Nuur Cusmaan Guuleed gudoomiyaha cusub ee degmada Xuseen Iidle Barkhadle taliyaha qaybta booliska Cabdi Khayr Dugsiye taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Cabdi Wali Cabdilaahi Warfa maareeyaha dikadda Saylac Siyaad Daahir Camuud iyo siyaasiyiin kale wasiirka ayaa wali dhex tibaaxaya hawshiisii ballaadhnayd ee uu ku suntanaa socdaalkiisani wuxuuna kulamo gooni la qaadanayaa odayaasha iyo duqeyda beelaha degan degmadan Saylac si kastaba ha ahaatee wali wax go'aan ah oo ka soo baxay ay jirto waxaana la filayaa inuu isku keeno 17 xildhibaan ee ka soo baxay degmada Saylac